السلام عليكم walaalayaal waxaan weli sii wadnaa casharadii barashadii operatorada PHP operators marka maanta operatorkan ka hadlayna waxa weeyaan qiimeynta logica marka qiimeynta logica operatorka qiimeynta logica waxaa badanaa loo isticmaalaa programyada u isticmaalaa markay rabaan inay qiimeeyaan tiro ama waxaan loo yaqaano string oo qiimeynayaan macnaha haddii numberkaasi yahay sida haddii numberkaas sida yahay iyo numberkan sida yahay macnaha iyo n iyo kulay macnaha waxaan ka wadaa logic wuxuu sheegaysaa laba number aad rabtaa inaad isu qiimeysid adoo isticmaalaya an operator sidoo kale laba number ayaa doonaysaa inaad isu qiimeysid adoo isticmaalaya or operator sidoo kale waxaad doonaysaa operatorka la dhaho XOR marka muhiimaddu waxa weeye inaan fahamno si u shaqeeyaan badanaan waxaa loo isticmaalaa sida halkan ku cad logic operatorka badan waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo xaaladaha PHP variables iyadoo la isticmaalayo operatorka loo yaqaano if statement oo ah PHP waxaan if statementiga loo dhaho maaragtay marka la isticmaalayo programka waxa weeyaan xaalado programkaaga uu sameynayo oo aad ku qiimeynaysid programkaaga waxa uu sameynayo aad leedahay haddii masalan kasoo qaad dii la dhaho haddii magaciisu yahay cabdi then waxaad dhahdaa da'diisa waa intaas sida Soomaali ahaan marka loo micnayo if statement waa saas waa condition aad jeegaraynaysid conditionkaas waxaad hubsanaysaa inuu sax yahay haddii programkaaga uu sax yahay uu qiimeeyo then actionkii aad qaadi lahayd ayaad muujinaysaa marka waa muhiim weyn inaan fahmno logical operatorska sida tablekan ku cad aad u jeedaan operatoradu waa kuwan dhinaca bidix ku qoran operatorka meesha ku qoran tahay waa an or XOR and or labadan hoose oo aad moodid ampersandka macnaheedu waxa weeyaan waa an iyo or oo sample ahaan loo qoray marka magacaada meesha ku qoran yahay an waa iyo an sida exampleka meesha ku qoran wuxuu yahay x and y macnaha xaaladda la qiimeynaya waa run haddii x an mar walba wuxuu qiimeeyaa labada situation hadday run yihiin then tiro saxa oo jirta way ayuu programka ku qiimeynaya orto macnaha waa or waa sida ama x or y labadan tiro qiimeynaya x ama y mar walba haddii midkood uu jiro tiro jirta uu yahay then programku wuxuu qiimeynaya tirada inay tiro sax tahay haddii midkood uu jiro meesha an ay qiimeynayso laba tiro inay jirto marka SOR sidoo kale macnaha waa mid kaliya macnaha ayadana waxay qiimeynaysaa x SOR y waa run haddii mid kaliya x ama y midkood ay tahay run oo ah tiro sax oo jirta and sidoo kale weeyaan sida kii hore aan usoo aragnay weeyaan haddii x iyo y labadoodaba ay jiraan ay yihiin tiro jiro programka wuxuu qiimeynayaa sax oo waa calaamadii waa iyadoo andkii calaamad loo isticmaalay orkana sidoo kale waa iyadoo loo isticmaalay calaamadda labada line oo isgarab taala aad moodid ga waa ama marka x or y waa run haddii x maaragtay ay midkood ay tahay run ama tiro saxa oo jirta marka kan ugu hooseeyana waxay ahayd waa negation waxa la dhahaa waxa weeyaan mid aan la ogolayn qaada ay dhahay x not equal to true if x not true macnaha waa xaalad sax haddii x aysan ahayn tiro jirta marka taas uu programku qiimeynaya marka example-da soo socdaan ku arki doona haddii ilaahay si aan maaragtay si aan aad ugu fahmno haddii ilaahay yara insha Allah way marka sidii caadadu noo ahaan jirtaba waxaan mar walba programkeena dirishada hoose ku qiimeynaa logic programka maaragtay anagoo fiirinayna maaragtay code yariisa oo ka hadlaya waxa ay tahay hadda masalan ka soo qaad programkan wuxuu qeexayaa laba variable x waxay la mid tahay 100 y waxay la mid tahay 50 marka waxaan leenahay programkan asagoo isticmaalayo operatorka ama logic loo yaqaan n wuxuu leeyahay if x equal to 100 haday x la mid tahay 100 sidoo kale y ay la mid tahay 50 then programkeenu wuxuu ku qorayaa screenka hello world ama hello hebel ama hello farax ama hello jama macnaha conditionka hello jama lagu qoraayo qoraalkiisa wuxuu suurta galayaa haddii x ay la mid tahay 100 y na ay la mid tahay 50 haday x la mid tahay 100 y la mid tahay 80 then tiradaasi programkeenu ma saamaxayo in hello world uu qoro muhiimaddu waxa weeyaan waa inaan fahnaa logic wax kale ma aha programmada waxa u isticmaalaan inuu xaaladaha qaar ku qiimeeyo isagoo isticmaalaya operator loo yaqaan and or SOR
and not a not camal marka tusaaleheenan ku arki doonaa haddii ilaahay yiraahdo bal aan aragno sida caadadu ahaan jirta waxaan furaynaa file cusub filekaas waxaan ku bilaabaynaa php filekan waan save garaynaynaa waxaan ku save garaynaynaa save as waxaan leenahay logical underscore operator demo .php so marka programkeen halkan noo wada for example haddaan rabno inaan tusaaleyno waxaan qori karnaa misalan kasoo qaad waxaan dhigi karnaa x waxay la mid tahay 100 semicolon sidoo kale y waxay la mid tahay conton semicolon then waxaan leenahay anagoo isticmaalayna if statement programyada soo socda aan ku baran doono laakiin hadda sida aan rabay inaad u fahamtaan xaaladeedu waxay tahay waa xaalad mar walba qiimeynaysa laba shay ama waxyaalo programku uu sameeyo qiimeynaysa oo leh haddii sidaa ay tahay saa yeel camal marka waa ogaan baran doonaa laakiin hadda programku suu u socdo aynu fiirino suu yahay marka waxaan leenahay x ay la mid tahay 100 operatorki an ayaan isticmaalaynaa sida halkan ka muuqata marka waxaan leenahay isagana sidoo kale y ay la mid tahay conton then waxaan leenahay programkeena waxaan u sheegaynaa waxaan ilownay inaan maaragtay bracketka ka bixino meesha waxaan oo dhan inay bracketka dhex galaan ayay ahayd marka bracketka kan aan tirtirno marka bracketka halkaas uu ka xirmaya calaamadaha furan ayaa mar walba if statementka daba socda marka waxaan leenahay echo waxaan leenahay hello abdi okay balaynu save garayno macnaha hello abdi waxay xaaladeedu screenka un lagu qori karaa haddii x iyo y labadaba ay yihiin tiro jiro oo conton saan anagu ugu qaxnay waa laba tiro jiro oo conton marka muhiimaddu waxay tahay programka meeshan screenka waxa lagu qorayo oo hello abdi goorta ay suurtagelayso waxay tahay marka x uu yahay 100 y uu yahay 50 walaynu tijaabina insha Allah save garayno save sida caadadu ahaan jirtayba marka logical waa inaan programkeena ku point garaynaa logical op demo.php waxaa ka jira line 10 okay line 10 maxaa ka jira wuxuu leeyahay meeshan waxaan ka iloonin semicolon iska easy way iska caddahay muhiim way inaad barataan qaladaadka faraha badan moo qalad aad fahamtid program qoristiisa ku sahlanaysaa marka taas waa muhiim inaad fahamtid marka aan save garayno control s ayaan garaacay marka programkii aan ku noqono aan dhahano parse sida u jeedaan hello abdi waa lagu qoray because sababtu hello abdi loogu qoray wax kale maaha haddii aan ban isla fahmno waxa weeyaan waxaan iri haddii x uu la mid yahay 100 y uu la mid yahay 50 then hello abdi sida kaliya oo hello abdi lagu qori karaa waxay tahay inay x ay la mid tahay 100 y ay la mid tahay 50 kadib oo ayaan ku qori karnaa screenka waxa wala in hadda isku dayno inaan modifikareeyo maaragtay y-ga u bedelo 80 wala arko marka programka inuu hello qoro wala inuu fiirino waxaan sameynaynaa halkan aan bedelaynaa ilaan programkeena wuxuu qiimeynayaa tirada jirta inay tahay tira laba tiro jirta midna inay tahay 100 midna inay tahay 50 marka haddaan kan 80 ku bedelno oo aan control s garaaco oo meesha ku noqdo aan dhaho refresh tiradu way macnaha qormi mayso sababta ay soo qormayso maxay tahay because xaaladan qiimeynayna waxay ahayd xaalad ah x inay tahay 100 y na ay tahay 50 markaan y u bedelno 80 macnaheedu
labadii xaaladood oo qiimeynayna midkood ayaa la jibiyey oo shuruudii oo programka u jeegaraynaya la maaragtay xeerkeedii la jibiyey. Marka muhiimka waxa waaye, marka muhiimadda waxay tahay if x equal to 100 y is equal to 50 then echo sida kaliya screenka hello abdi lagu qori karaa waxay tahay labada xaaladood hadday sax yihiin, laakiin sida meeshan ku cad xaalad ayaan bedelnay. marka sababtaas weeye sababta aan ugu qori weyne meesha maaragtay hello abdi uu baxay. laakiin haddaan sideedii hore kusoo celino oo 50 ka dhigno, 50 ka dhigno, aan control s aan garaaco, haddana aan programkii ku noqdo oo aan dhaho refresh conditionkii, macnaha xaaladii oo programkeena jeegaraynaya xaalad sax ayay ahayd because x na waa 100 y na waa 50. markii hore annagaa qaladnay, marka waxaan rabnay inaan ogaano inuu programkeena ama uu qorayo wax qalad. marka conditionka uu jeegaraynaya waa an macnaheedu wuxuu yahay labadaas xaaladood haddaysan sax ahayn macnaha tiradu ma hagaagayso. marka aan fiirino o, marka kasoo qaad haddaan hadda kan ku bedelo o, haddaan o ku bedelo, bal ayadana aynu fiirino, aan dhaho control s oon maaragtay aan refresh ku sameeyo. horta kan aan bedela, marka aan ku bedelo kan hello caasho, bal magacaas isaga bedelno, waa magac Soomaaliyeed. marka waxaan sameynaynaa haddaan hello caasho ku bedelo, xaaladan or waxay qiimeynaysaa haddii labada tiro at least midkood uu yahay tiro jirto uu yahay, macnaa haddii labada tiro mid kaliya ay jirto, haddii x yahay 100 ana y uu yahay 50, haddii x yahay 100 y uu tiro kala noqdo hataa shaqo kuma leh, hal xaalad ayuu mar walba jeegaraynaya. markaas wuxuu leeyahay hello caasho. walaanu tijaabino sida halkan ka muuqata, waxaan declare garaynay x waxay la mid tahay 100, y waxay la mid tahay 50. marka programkeena wuxuu qiimeynayaa or logic muxuu qiimeeyaa in condition kaliya uu sax yahay, hal condition kaliya maaha laba condition. anku waa laba condition, laakiin ogu waa hal condition. haddii tiro kaliya ay sax tahay tan kale aysan sax ahayn, still programka waa qoraya. tusaale haddaan hadda kan weli 80 haddana aan 70 ku bedelo kasoo qaato tusaale ahaan, weli programkeena magacii sidiisuu u daynaya oo waa qoraya, sababtoo ah hal xaalad ayaan qiimeynaynaa mar walba. haddii labada tiro mid kamida ay tahay tiro jirta, sida hadda 70, macnaha y 70 ma aha oo tiro jirta ma aha, because programkeena wuxuu qiimeynayaa x equal to 100 and y is equal to 50. 50 meesha ma jiro, tiradu waa 70, laakiin muxuu programkeenu wuxuu ugu qorayaa tirada meesha hal xaalad ayaa sax. important waxa weeye inaad fahamtaan conditionada ay jeegaraynayaan oo waa hal xaalad, conditionka uu jeegaraynaya anna waa laba xaaladood inay sax tahay. marka bal aan sii socono fiirino kuwa kale bal aynu ku bedelno kan soor aan ku bedelno, asagana aan ku bedelno soo kan sidiisii aan ku celiyo 50 aan bal isku dayo marka bal haddaan tiradan, marka tiradan haddaan ku bedelno 80 for kasoo qaad, ilan x waxaan idhi 100 y waxaan idhi waa 50, laakiin meeshan uu programka qiimeynayaan bedelaynaa. bal haddaan kan xoogaa bedelo oon ku bedelo cali misalan kasoo qaad, aan dhaho control s, then kadib aan dhaho programka bal qiimee, sida halkan ku cad soorku wax kale ma aha, soorku wuxuu qiimeeyaa hal xaalad kaliya asaga laftigiisu. wuxuu dhahaa haddii x equal to 100 soor y na ay la mid tahay, hadda xaaladda noo sahashay in maaragtay hello cali ay meesha kusoo qoranto because hal xaalad ayaa saxa, xaaladaas oo ah kan oo ah x equal to 100. muhiim way inaad fahamtaan. bal aan sii guda galno oon aan fiirino aanku isaguna waa sidoo kale, macnaha calaamadan aanka la dhaho maaragtay oo saa loo qoro, iyaduna waxay qiimeysaa misalan kasoo qaad haddaan kan bedelno oon ka dhigna calo faarax, aan control s dhaho, oon programka aan qiimeeyo, oon halkaa ku bedelo 50. kan waa aankoo kale, programkan hadda aankan calaamadan ujeedaan sida aankoo kale weeye. marka haddaan hadda control s garaaco oon programkii furo oon dhaho sida halkan ku muuqato hello faarax, okay faarax si qalad aan qornay laakiin dhib male,
macnaheedu wuxuu yahay labada xaaladood inay mid jirta ayuu qiimeynayaa. Marka bal aan dib u fiirino sidii haddaay tahay anka aan sameyno oo kale aan isku dayno inaan kaa u bedelno 80 bal inuu programku noo qoray in kale ama aan u bedelno 60 ka soo qaad aan dhaho control s then kadibna maaragtay aan dhaho refresh ku samee saad u jeedaan programka wuu tirtirmay sababta u tirtirmay waxay tahay calaamadan an ka ampersandka waa sidii anka oo kale haddii labadan xaaladood aysan run ahayn oo sidii loogu declare gareeyay aan loo isticmaalin tahay x equal to 100 because hadda xagga 160 ana oo qoran 160 meesha oo qoran 100 ah x y ah 60 like programku wuxuu qiimeynayaa x inay la mid tahay 100 y ay la mid tahay 50 50gi y ga ahayd waa qaldan yahay marka that's why programku uu noogu qoro waa hello farax sababtoo ah waxaa loo baahan yahay labada xaaladoodba inay conditionkooda sax yihiin hadday sax ku sidaan sax ku dhigano waxay tahay haddaan kan u bedelo misalan 60 aan ka dhigno labadii xaaladood baa la kulmeynaa marka haddaan programkii intuu ku soo celiyo aan dhaho refresh wixii meesha ku soo qormaya sida meeshan ku cad marka muhiim way inaad fahamtaan hal mid ayaa naga maqan marka bal aan raaciyo orku sidoo kale way asagana calaamadan orka labadan calaamadood saa loo qoro labadan calaamadood sida waa orka oo kale weeyaan macnaha orku waxay la mid tahay haddii hal xaalad ay sax tahay misalan xaaladan waxay qiimeynaysaa orka waa sida orka oo kale because or macnaheedu wuxuu yahay ama waxay tahay xaalad keliya hadday sax tahay macnaha programku uu qoraya waxa meesha aad condition uga dhigtay misalan haddaan halkan qorno oo aan dhaho refresh halo jaamac u qoray because sababtu halo jaamac u qoray waxay tahay labada xaaladood or midkood un hadduu tirada sax yahay hadduu kan un sax yahay hadduu x un sax yahay ama y ga un sax yahay midkoodba waxa weeye programku uu qoraya haddaan hadda kan bedelo un ku bedelo kasoo qaad 90 ku bedelo still tiradii halo jaamac waa qormaysaa sababtoo ah oo bal aanu aragno horta magac kale aan ku bedelno si aan ogaano maaragtay wax qorayn kale hello Jess okay haddaan halkan aan refresh ku sameyno saad u jeedaan hello Jess ayuu qoray sababtu u qoray waxay tahay because labadii xaaladood aan qiimeynay midkood oo macnaheedu wuxuu yahay just hal xaalad hadday sax tahay anigu wixii aad ii qorto waxaad ii sheegtay inaad screen ku qorto oo ku qorayaa intaas weeye marka muhiimka waxa inaan isfahantaan marka hal operator ayaa noo dhiba marka kaas waxaan rajeynayaa inaan idinku maaragtay aad isku daydaan oo misalan kan notka wax kale maaha tirada aa haysatid bilcagsigeeda macnaha ayuu raadinaya misalan not x macnaheedu wuxuu yahay hadday not x tahay marka then waxaa rabta screen ku qor kartaa marka intii ugu badneed oo dhan waa inii shaxay marka kuwan kale yarariiska idinkaan igu daynaya marka inaan wadaan marka waxaan isku arki doonaa casharka dambe haddii ilaahay rabo mahadsantiin waxaan u malaynayaa macnaha ina xoogaa fahamteen logigu wuu adag yahay inaad fahamtay ilaa program aad qorayso marka programada soo socdaan qori doona oo isticmaali doona markaas si fiican u fahmi doonta haddii ilaahay rabo mahadsanid waxaan isku arki doonaa casharka dambe